السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قبض أيا وحا أي قرستين مقالك أها أمير. قبض أسي وحا هيد من آدو جعل أمير كاسي تاعب بي وهيد وحوال بناوي وقبان جرتي إلا أو أميركي كوقان عيدقان كيدا إيدون وحدن بيا كجلين أو آدو احترامي جرتي أيا وحا أيس قبان مدو 10 سنة طبعا كاسي سنو آد أيا يسؤول لنسي أولي قد ما أنا خيامين إساقلتي سنمون حمين مادام أي كبر وناكسن تهاي دقان كيدا يا أخلاق ديدا وناكسن إيا التربية ديدا وكوقان عايد حدوا مالين مالما كميدا أيا وحا دعدي ويل كاتير سنة دادك مقالة داسي كنورا أيا وحا أو سمية qaladkaasi oo ninkii amiirka ahaa aad uga xanaajiyay ninkii amiirka ahaa ayaa waxa uu go'aan ku qaatay inuu wiilkaasi ku rido xero ay aydi ku xidhnaayeen ay weliba dad cun ah oo gaajaysan ninkii aydi dad cunka ahayd ayuu u xareeyay halkiibana lagu cunay intii kadib wuxuu go'aan ku qaatayba si ay dadka qaryada degan ay uga cabsadaan in qof walba oo dembi gala uu halkaasi ku ridi doono dadkii qaryada degana ayaa go'aankaasi cusub aad uga warwaray badankoodu ma ay rumaysan oo waxay isiraadeen kolley uu nuga cabsiinaya oo waxaan wax macquul ma aha balse xaakimkii waa uu dhaqan galiyay go'aankiisii oo si ay dadka tuulada degana aad uga baqaan wuxuu sameeyay nin wasiirkiisa ahaa oo qalad sameeyay ayuu aydaasi dad cunka u xareeyay waa sida ninkan hadda madaxweynaha ka ah waqooyiga Kooriya ee ninka wasiirkiisa ah madfac ku riday dadkii waa ay yaqiinsadeen maadaama oo wiil dhalinyaro hortooda ay loogu xareeyay oo halkii aydu ku cuntay oo haddana nin wasiir ah lagu riday aydaasi dadkii shacabka ahaa ayaa aad uga warwaray oo aad uga baqay qof walibana wuxuu yiri haddii aad qalad gasho halkaasi ayaa lagu ridi doonaa kolley haddaba arrintii ugu yaab ka badneed waxa ay ahayd ninkii xaakimka xaaskiisa ayaa qalad yar ku dhacday qaladkaasina waliba ma ahayn mid uu ka cusameysay waa qalad ka dhacay buu ahaa qaladkiina wuxuu gaaray bulshadii magaalada deganeed oo magaalada ayaa la isla dhaxmaray ninkii wasiirka ahaa xaaskiisa ayuu qaladkaasi ka dhacay ninkii wasiirka ahaa arrinkaasi aad ayuu uga warwaray maadaama xaaskiisa tahay walibana ay ahayd gabadh aad wanaagsan balse waxa uu go'aan ku qaatay inuu iyadana halkaasi ayda ugu rido wuxuuna u sheegay inuu ciqaab ahaan aydaasi ugu xareyn doono halkaasi lagu cuni doono gabadhii ayaa waxay ku tiri maadaama aad go'aansatay inaad aydaasi ugu xareyso aniga oo xaaskaagii ah oo xabiibtaadii ah oo muddo 10 sano ah aad qabtay oo waliba aan wax dembi aadan igu arag inaan axsaan ku sameeyo mooyaane qaladkan aan sameeyayna uusan ahayn qalad saa weyn haddaba ku odhamaaya idaah balse waxaan ka codsanayaa inaad muddo 10 cisho ah aad jaanis siiso 10ka cisho kadibna aad igu fuliso waxa uu yiri malaha reerahoodii iyo asxaabteedii ayay soo macsalaameynaysaa wuxuuna ku yiri codsigii waan ka aqbalay markii uu codsigeedii ka aqbalay ayaa waxa ay toos u degtay goobtii ayda lagu hayay ee lagu xanaaneynayay waxaana ka codsatay ninkii washmaanka ahaa ilaalinayay inay muddo 10 cisho ah ay aydaasi u shaqeyso waxaana ku amartay inuu arrinkaasi cidna ku wargelin muddadaasi ay ayda xanaaneynayso ninkiina arrinkii waa uu ka aqbalay oo uu ogolaaday muddadii 10 cisho ahayd ayda si fiican ayay uga warhaysay oo way la joogtay oo mar walba cuntada ayay u keenaysay waxay u dhaqaaleysay muddadaasi 10 cisho si aan hore aydaasi loogu dhaqaaleysiin muddadii 10 cisho ahayd markii ay u dhamaatay ayaa ninkii xaakimka soo xaadiriyay gabadhii dadkii tuulada deganaana meeshii waa ka soo xaadireen si ay u arkaan arrintan yaab kale meesha ka dhacaysa markii dadkii soo xaadireen ayaa ninkii ilaaliyaha ahaa u yeedhay wuxuuna ku amray inuu gabadhaasi aydaasi dad cunka ah ee gaajaysan uu u xareeyo gabadhaasi si ay u mutaysato dambigii ay gashay si ay uguna waana qaataan dadka tuulada degan gabadhii ayaa lagu xareeyay dadkii oo daawanaya balse aydii way cuni waayeen way si garab fadhiisatay aydiina way si garab fadhiisteen ninkii xaakimka wuxuu yiri malaha aydu ma gaajaysna ay hadhow way cunayaan wax la sugo meeshii waa lagu caajisay wuxuuna yiri caawa markay gaajoodan ay cuni doonaan caawa hala barido markii waagii bariyay ayaa waxa uu yiri balmeedkeedii soo arag markii uu tagay waxa uu arkay iyadii oo aydii iskaaga hurda aydiina wax xagtina xataa aysan u geysan yaab wuu fajacay wuxuu yiri bal caawana hala barido habeenkii labaadna way la bariday aydiina wax cunto ah lama siin balse ay u gaajoodaan gabadhaasi u cunaan way cuni waayeen aydii iyadiina way iska dhax seexatay habeenkiina way la bariday subaxii dambe ayaa ninkii xaakimka u yimiday wuxuu arkay gabadhii caafimaad qabta oo wax dhibaato la gaarsiin kadib ayaa waxa uu ku yiri maxaad ku sameysay ayda ay ku cuni waayeen muddo 2 habeen ah iyagoo waliba gaajaysan kadib ayaa waxay ku tiri maqal xaakimow muddo 10 cisho oo kaliya ayaan aydaasi xanaaneeyay abaalkaygiina way garteen oo imay cunin balse adiga 10 sano oo dhanbaad soo qabtay wax walba oo doontina waan ku sameeyay wax dambi ana kaamaan gelin muddadaasi 10 sano dambi yar oo sameeyay ayaa waxa uu ilowday wanaagii iyo ihsaankii aan ku soo sameeyay balse aydaasi xayawaanka ah muddo 10 cisho oo kaliya aan xanaaneeyay ayay ilaawi waayeen oo ay cuni waayeen waliba iyagoo muddo 2 maalmood gaajaysnaa ninkii xaakimka ayaa waxa uu ogaaday go'aankan uu qaatay inuu ahaa mid qaldan habooneed inuu ka fiirsado gabadhii sidii ayuu ku sii daayay oo iska fasaxay haddaba xikmadda qisadan ku jirta
waxay tahay inuu qofku uusan ku degdegin xukunka dadka iyo qof wanaag badan kuu sameeyay inaadan ku ilaawin oo kaga xanaaqin hal mar uu qalad yar ka galo isbarbar dhig qaladkan uu ka galay iyo wanaaggii uu ku soo sameeyay waxaan idin rajeynayaa inay qisadani aad idin qancisay faa'iidada ku jirtana aad kala baxdeen haddaba qof waliba oo daawaday waxaan ka codsanayaa inuu sii sheergalayo uu la wadaago asxaabtiisa kale si uu khayrku inoogu bato annaga iyo idinkaba janalka dadweynahana subscribe saara si aad ula socotaan barnaamijyada soo socda ee xiisaha leh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت كم من نقاط جنرال تدوين لها سبسكرايب أو نقص بير وحد إنه تهدر